wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland booqasho rasmi ah ku jooga waddanka Djibouti Dr. Ciise Kayd Maxamuud ayaa waxaa wasaaradda arrimaha dibadda dalka Jamhuuriyadda Djibouti ku qaabilay dhigiisa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf. wasiirka ayaa waxaa kulankan qaabilaada ku wehelinayay wasiirka gaashaandhigga ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiqani Maxamuud Cataye Fariid iyo safiirka Somaliland u fadhiya waddanka Djibouti Ambassador Cabdifataax Saciid Axmed. safiirka Somaliland safiirka Jamhuuriyadda Djibouti u jooga waddanka Somaliland Xuseen Cabdilaahi Kawaaliye iyo xubno kale oo ka socday labada wasaarad arrimaha dibadda ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland iyo dalka Jamhuuriyadda Djibouti. hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland oo uu ka mid ahaa wasiirka gaashaandhigga dalka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxaa miiska saraakiisha ee dalka Djibouti ku qaabilay wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Djibouti Xasan Cumar Maxamed. wasiirka gaashaandhigga dalka Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiqani Maxamuud Cataye iyo wasiirka gaashaandhigga ee dalka Djibouti ayaa waxay iskula soo qaadeen in iskaashi laga yeesho dhinaca gaashaandhigga labada dal ee Somaliland iyo Djibouti. Maxamed Jaamac Waale, warbaahinta qaranka Somaliland, Djibouti.